Is that what you wanted? Yeah. From Somalia. From Somalia? waa waqooyiga Dankota ee gobolka Manitoba oo xiga xuduudda u dhaxaysa Canada iyo Mareykanka. Maxamed wuxuu ka mid yahay boqolaal Soomaali ah oo ka soo hayaamay waddanka Mareykanka kuwaas oo dhawaanahan ku soo qulqulayay dalka Canada. Waxaa qabtay booliska Canada, waxaa ka muuqda haraad. In ka badan 7,000 oo muhaajiriin ah ayaa soo galay dalka Canada sanadkii 2016 kuwaas oo soo maray dhulka kana soo gooshay xuduudda u dhaxaysa Canada iyo Mareykanka. Tirada ayaa kortay 63% markii loo eego sanadkii hore. Telefishinka dawladda Canada oo sameeyay baaris ku aadan arrintan ayaa sheegay in ay jiraan dad ka shaqeysta dhoofinta dadkan kuwaas oo keena meel u dhow xadka oo tilmaama madashii ay ka gali lahaayeen Canada. He dropped us at some place and he said you cross this field, you cross the road. wuxuuna keenay goob wuxuuna nagu yiri wadadaas ka tallaaba ma aragtaa goobtaas nalka halkaas ka ifaya halkaasi waa xadkii marka haddaad halkaas gaadho waa Canada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka mamnuucay 7 waddan oo ay ka mid tahay Soomaaliya in dadkeeda ay soo galaan Mareykanka wuxuuna taas ku macneeyay in ay dan u tahay sugitaanka ammaanka waddankiisa. laakiin mid ka mid ah maxkamadaha ku yaala Mareykanka ayaa ka soo horjeestay go'aankiisa waxayna maxkamadda ku sheegtay in aan wax cadeyn ah loo helin in qof ajnabi ah oo dalalkaas ka soo jeeda uu fal argagixiso ka fuliyo gudaha Mareykanka. balse madaxweyne Donald Trump oo aan ku qanacsanayn arrintaas ayaa yiri. Let me tell you about the travel ban. We had a very smooth rollout of the travel ban, but we had a bad court. bal aan wax kaaga sheego xayiraadda dhanka safarka ayaanu soo rognay waxaanu lahayn hab aad u sahlan oo aanu ku dhaqan gelin lahayn xayiraadda hase yeeshee maxkamad xun ayaa ina hor istaagtay go'aan xun ayaa ina soo wajahay mar kale ayay qorshaheennii ay maxkamadii hor istaagtay taasi waa suuragal inay khalad tahay go'aan xun ayuu ahaa hase yeeshee taayada ayaanu wadanaynaa. ma ogtahay in BBC Somali app aad hadda kadib ka heli kartid barnaamijyadeena laanta af Soomaaliga ee BBC-duna waxay dhageystayaasha ugu bishaareynaysaa qaab cusub oo aad telefoon iyo app uga dhageysan kartaan barnaamijyada idaacadda. BBC Somali app-ka cusub waxaad si fudud ugu soo dejisan kartaa mobile-kaaga. 2 qaab ayaadna u dhageysan kartaa waa internetka iyo telefoon wadamada kale ah Mareykanka, UK, Nigeria, Kenya, Norway, Australia, South Africa iyo Sweden. haddaba si sahal ah abkan cusub ee BBC-da uga dhageyso barnaamijyada BBC Somali.